wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed iyo mas'uuliyiin ka tirsan madaxda maamulka gobolka Banaadir ayaa maantii ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Ugaasnoor Airport ee magaalada Dhuusamareeb garoonka oo ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya bulshada qaybaheeda kala gedisan ciidamada booliiska qaybtooda Baanbayda madax ka tirsan maamulka Galmudug ayaa si diiran u soo dhaweeyay gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa loo soo gudbiyay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana saxaafadda ugu horeyn la hadlay wasiirka koobaad ee maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaana uu sheegay inay si hufan ugu soo dhaweynayaan caasimadda maamulka ee Galmudug waxaan soo dhaweynaa halka ku soo dhaweynay gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Taabid isagoo ka soo qayb galay munaasabad weyn ee ka dhici doonta caasimadan aan joogno ee Galmudug taasoo lagu midaynayo labadii maamul oo ka jirtay gobolada dhexe iyadoo beesha caalamku ay imaanayso برهنا ونسوق جاري دونا إلهي إذنك مدحوينه جمهورية فدرالك الصومالية شلنا إن سوق جاري يدرد حلبان فدرالك يا سنة الصومالية لبدا أقلك كوبان ما أنتنا أي مادين ودومي هنا هدا ونسوق جاري أنا كسر دوينا أي ربورك عالمي جاء مقالة تنوصمرب وحن هذه ومهد علينا إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبرينا مواصبة قيمها بدل إلهي إنه نوجك ملاسي ونأكسن gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta uu kala kulmay maamulka iyo shacabka magaalada Dhuusamareeb waxaana uu sheegay in si aan loo kala harin oo sharaf iyo karaamo iyo walaalnimo iyo Soomaalinimo ku dheehantahay lagu soo dhaweeyo magaalada Dhuusamareeb waxaan u mahad celinayaa wafdiga soo dhaweeyo hogaaminayay madaxa xukuumadda ee gobolka Galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan oo soo dhaweeyay iyo maamulka ahlu sunna wal jamaa oo dhamaantood maanta halkan lagu soo dhaweeyay iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole saraakiil mas'uuliyiin kale ee bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan markooda leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay Ilaahay idinka abaalmariyo marka xiga waxaan salaan diiran iyo hambaliyo idinkaga wadaa dadweynaha gobolka Banaadir ku nool oo salaan qiimo leh soo faray soo gaarsiiyay inta kadib munaasabada oo aan u nimid ayadoo loo munaasabad ay tahay midna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu imaanaya berri ayadoo loo imaanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya heshiiskii ee maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna wal jamaa iyo sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug ee ku kala saxiixeen bishii December dhaqangalkiisa oo berri insha Allah taala la daahfuri doono dhaqangalkiisa hadduu Ilaahna gaarsiiyo dhamaanteen waxay noo tahay sharaf maadaama kii hore aan goobjoog ka ahayn TV-ga Universal Dhuusamareeb Cabdiweli Taaxow TV-ga